Hello, qaraabo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Soo dhawaada video cusub. Actually shalay video maan soo duubin maanta jimcaana marka maanta jimco career musma dhigayay marka video cusub aan rabaa inaan sameeyo hadda ka bacdi jimco walba aan soo dhigayno. Isbuucaas kooxdii laga badiyaa ama si xun loo gala ama la rafaadsada aan qabanaynaa waxa waaye isbuucaas waa soo qaadanaynaa ma fahantay marka waxaan isku dayaynaa inaan Champions League koob walba aan ku qaadno marka hadda saxiixiyaa sameeyay saxiixadaas hadda oo Manchester United hadda aan micnaha laga rabaa inaan dhiso saxiixyada u sameeyay ay kamid yihiin Bedri iyo laba saxiix bis ah sameeyaan midna waa Bedri midna waxa waaye Erkan Kylian Mbappe marka labadooda marka waa xaaslaa balma Browesido kulanka ugu horeeyay Man City ku Browey Mbappe waa u jeedaa wuxuu cunay kubad gool 99% dhigi karay Mbappe oo dhalina wanaga cunay kubadaas aad ugu xunaay markana waa kana Mali Junior dhigana waxa waaye kooxda hore ugu sii jiro bana hadda koor sameeyay mar aan career u dheeli jiray ama YouTube aan instagram TikTok mar aan sameeyay career aan sameeyay jiray qaarkiin dadkiina qaarkood oo TikTok iga soo raacay yes of course waa yaqaaniin ama Mali Junior waa kaas goosha uraysa hadda noo dhaliyay marka hadda Manchester wax kaliya isku dayana waxay tahay inaan koob walba ku guuleysto Mbappe gooshiisa ugu horeeyay ma dhali doona Kylian Mbappe let's go gooshiisa ugu horeeyay shan konton daqiiqo kamir gooshiisa ugu horeeyay marka waxaan rabaa koob walba kooxda dheelaysa inaan ku guuleysto intii karaankay muhiimada ugu weyn ee tahay Champions League inaan ku guuleysto kooxda Champions League hadda hal ciyaareed hal bilyan lacag hadda ku guuleyso waaye wax oo micnaha oo gool aan ka soo gaarna malaan ilaa markiis kulna final imaanay waxa waaye kulanka Tottenham oo bixinay waa kana Mbappe waa kan gooshiisa wuxuu dhaliyay gooshiisa koowaad u dhaliyay koobkan finaalka oo ka dhaliyay daqiiqada 15aad markana waa kana Mbappe mar kale birti ugu dhacday waa kana Mali Junior sidoo kale gooshiisa labaad meesha dib aadi Mbappe hadoo dhalanayo Mali Junior lagama waynayo waa faynteen amleena marka waa ciyaartaadii finaalkan hadda koob waxa waa maleen koobkan kii waa maleen maxalla Carabao Cup waaye si real life ku qaadin kan caadi waxba u maahan hadda Casemiro kabtan noo ah maleen sa maleen Bruno u jeeda Casemiro kabtan noo marka sida caadiga koobkan waa qaadeen laakiin muhiimadu waxay tahay horyaalkii Champions League FA Cup kan hadii aan qaadi karno waa kaas laakiin hadii naga qaadana waxa waa isku dhibeen ma fahantaday oo Champions League horta wareeg 16 Real Madrid ugu soo aaday kulanka hore wuxuu ku soo dhamaatay 1-1 ku soo dhamaatay inta la imaado daqiiqadii 41aad Bruno Fernandes gool dhaliyay daqiiqadii 54aadna waxa arigoore helay yarkaan Mali Junior arigoore helay taas oo u sarifay gool inuu ka dhigo 3-1 aggregate-ka sii mareysay aan saas ugu soo baxnay Real Madrid waa inuu dhamaatay kulanka lagu xigo wareega quarter finalka Juventus is qabanay kulanka hore 2-1 inuu soo badisay daqiiqadii 4aad Mali Junior arigoore helay sidoo kale waa kulankiisa labaad ku xigo arigoore helay waa Champions League ciyaarta 2-2 ka dhigay marka ciyaarta iyadoo la isleeyahay intee Manchester wax ka bilaabi doonta si wax u wadac Afrika qurux badan oo ay laakiin waa ku xumahay waa cunay Mali Junior adiyaad marka waa kana markana weerar kale Mali Junior waa kana waa labada gool asaa ka dhaliyay ciyaartaas wax ku maraysa 3-1 ku maraysa mbande waa hawaii afri halande aggregate marka la fiiriyo afri haltaas ku maraysa Juventus waa ka soo baxnay wareegga semifinalka waxa noo imaaday Napoli semifinalka noo imaatay isla Talyaaniga ku soo laabanay hadin markana waa magaalada Turin waa ka soo tagay markana magaalada Naples ay imaanay kuwana xamalena group xamalena group maahan lugta koobaad inay waxa xamalena 2-1 noogu soo baakaas 2-1 noogu soo badiyeen alla Mali Junior waa wareer 3-4 alisi marooya goolayaam ku dirigta no wacag laakiin banaanka ka martay oh my god wallahi si qurux badan oo soo gagambiyay wallahi kana markana waa kana Mali Junior waa kana Mbappe u dhiibay ninkaan ku badalay qabanahay Kylian Mbappe oo soo bareejiyay daqiiqadii 15aad waa ciyaartana ay looban semifinal inay tahay Napoli waa koox adag waayo isku laakiin dhibcood ma lagu tashay karo sanadkan waa kooxdu waa adagta Mareykanka 14 bacdo ku haysta amrayna Mbappe waa kaasasna ciribta waxa ku qoslay ciribta ka dhaliyaa la yaabana oh my days bro this guy wax ka awood badan game-ka malaha wallahi Mali Junior asna waa kaas gooshiisa saddexaad u dhaliyay saasay marka waxay ku noqotay 4-2 semifinalkii markana waa kana banaanka loo soo dhigay Mali Junior oo bisaakaas kubadda soo tuuray waa 5-2 saas ku soo baxday waa ka soo baxnaaday Napoli semifinalka waaye soo marka hadda waxaan u dhiman waxay tahay finalka iyo kulankeena ugu dambeeyay horyaalka aan hadda waxa u baxaynaa 15 bacda ka sareena laakiin kulankan waxa u dheeli waxay tahay sababtoo kulankii la siinayo waa koobka qaadayay horyaalka
فهمنا dhibco badan ka sareynaa kulamada horaalkina waa gudbi waxa waaye waxa la dhahaa rebuilding waxa la dhahaa waaye fahamtay marka in la iska boobuusiyo oo laakiin ay maxaa la dhahaa kulamada muhiimka la dheelaa bis ana maanta kulamada muhiimka hadda dheelay laba gool si marsiinuna maxaa la dhahaa kooxdan Liverpool markana waa kana Mbappe oo malena waxaas mis Bruno Fernandes waaye ma aqaan wallahi waa Mbappe waxa kala ma baahanba 3-1 si maraysa ciyaarka markana maali jooni oh my days bro gool qurux badan oo والله وشاز جول قروح بدن هذا واو وكنا عيارته وحمرس واو دقيقة وصوته والله سديتني 6 دقيقة سمرس بمب وقلي عقتها أبيه وكاس ليش وقسي شني حال ساسي مركو حين غنيسا مرك إنه هريالكود هاد أنتوا لو جودونسيو هريالكود كويلة واتنات ونقنا أنت هاد لو جودونسيو كل لندن واسكو حوا اسك موقتها كلنا بنبينو قادايو وجعلها والله ومساكين إنسان نقطة وفقط جعلها كوحدة inkastoo aniga taayir Liverpool ahay laakiin Manchester inuu koox weyn oo saas u dhibaatoonayso ma arki kartid qof kubadda qofkii yaqaano ma arki karo taas horaalka hadda ugu qaadnay ma horaalka waa ka soo dhamaanay marka kulanka ugu xiga waxay tahay PSG iyo finaalka Champions League finaalka markii Ilaahay amarkiis waxa lagu dhigayaa garoonka Parc des Princes oo ku dhasho PSG gurigooda lagu dhigayaa Ilaahay amarkiis marka waa advantage badan laga haystaan faa'iidooyin badan laga haystaan sababtoo gurigooda waa ku bartay marar badan ku dheelaan like xogaa inay nagu fiicayna macquul marka Mbappe goshi kood Mbappe 12 daqiiqo ku qaatay inuu goolka ku xiisoora ma uusan ku dabaaldegin laakiin wuxuu waxa waa respect ayna haya PSG laakiin respect waxa la ma jiro waa daqiiqada ka bacdi goshi labaad oo ka dhaliyay markana laakiin celebration oo sameeyay oo waxa waaye ama waa respectiga goshi hore ku ekeed laakiin marka celebrationkiisa caadi lagu yaqaano sameeyay si Bruno iyo waxa ujeedeen iyo Badri iyo Wan-Bissaka markana waa kana weerar soo qaadan Neymar laakiin kubaddaas madax aandhe darba inaheeda jeclahay madax maahane kubadda gooshu ku hagaagiyay saasoo marka wuxuu ku noqotay ciyaarta 2-1 Kambi koowaad waa la soo laabtay Kambi iyadoo dhamaar abto Badri wuxuu helay Janis kubad banaanka goolaya inta la banaanka intuu ku maqnaay Mbappe iyo difaaciisa intuu goolaya xaq inta Mbappe dhankiis wadaayeen marka Badri kubadda banaanka ka helay waa kubad markaas waa ku shooday waa abaar leedqad lixdanaadna marka xawaaye kubad uu soo qaaday Maal Junior waxa lugta ku dhuftay ama saa u taqaanay slash qurux badan ka dhaliyay ninka aan weli arkin goolashiisa ay yaraayeen Marcus Rashford saasoo hadda noogu dhamaaday insha Allah koox kale hadda jimco walba isbuuca marka hadii like next week hadii oo hadda bari oo bilaabanayo sabtiga hadii koox weyn laga badiyo oo xogaa la rafaadsado of course waa sameynaa saan oo kale oo sameynaa lacag siinayna player waa la soo wareegaynaa marka waxa waaye ina kooxdii iido ever-head ka dhigno koox Champions League ku guuleysay hadda Manchester United oo kale waa kan hadda koox waxa ka dhignay the best team in Europe ka dhignay faande waa kooxda ugu fiican hadda Europe waa Champions League qaaday waxa kale oo qaaday ilaa ma ku darnaad Horyaalka qaaday Carabao Cup qaaday markaas 3 koob ku haysta laakiin waa ku xumahay FA Cup waa naga qaaday ama waxa waaye Liverpool 4-2 ugu baysa amalina asna waa si gudbi laakiin labada koob ugu muhiimsan waa Horyaalka iyo Champions League labada baa qaadnay markana waa kana Maal Junior saa kabtan waa saa u qaadayo wax walba saa hawa kooxda hogaamiyaha ruuxiga waaye marka insha Allah every week waa sameynayna jimco walba habeenkii jimcaha soo dhiga insha Allah ta'ala hadii oo wax kale aysan dhicin laakiin jimco walba ay filinaysiin saan oo kale na koox dhisno aan laakiin ay asoo macnaha like hatta kooxda hadii Serie B Serie C joogtay xitaa ma aragtay koox la kooxda soo dalbatiin oo loo bato isbuucaas waa ina soo dhisnay noqonay ilaa heer Champions League ay gaarto waxa waaye hadda Manchester United faraxsan yihiin like Manchester United oo kala arko laakiin ma umaleynaa wallahi sanada soo socdana arki doono sababtoo ay Manchester buildingkeega ama rebuildingkeeda ma dhow wallahi xogaa ay qaadanay sababtoo hadda kooxda hadda tobadii waaye waa xogaar niyadjab u geysanay marka soo insha Allah ta'ala video inta soo nooga kana waxa leeyahay ku soo dhawaada janalkeeda ku cusubtahay subscribe like share soo dhawaaw waxyaabo kale iska sameeynaa videoshan oo kale FIFA iska dhadheelna marka waxa jeclaa insha Allah ta'ala ina FIFA keeri doontiin waxa leeyahay intii aad video saac amal kulmi doono qeyr badan